بسم الله. سيفي عن مرة مقلع عدكي بلابنا إن شاء الله دي عدك أوكي هاي يجي كلاه إن شاء الله. سيفي عن ملي مقلع سيفي عن ملي مقلع عدك سيفي عن ميدين سو قارا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة برنامج كيني تسمدا تلاذة. تسمدا إن شاء الله تعالى عنوان كيدوحو يهي همون هرمر. همون معناها إرجع همون قفك أنا في صومالي أهان سفي عن أقولين وباهيدا زائد أولي بس النظر الله قبوك لا همون تأرجع الله استعمالها يعني باهي زائد إنه حقبتون مركو حنقول مقعدرين همون هرمر يعني إن هرمر كي أقبنا باهي حدافة وآلي أدلوه باهية مرك أنت أنا رأيي يسمع أركان بجودجين سؤال أسوي دينه هرت هرمرينتا نفتا أما سيدي سبا هرمر موح أو مارت الراحة إي باشال أهميها مسوى على مهران فأجل هرت سوي ديننا إن ليس هرمري أو قفك نفتيس هرمري أما شغليس أو هرمري أما ودن دولة يعني دولده أي ودن كذا أي مجتمع هذا هرمريسو يا موح iska baashaal iyo waxyaabo maaragtay dadka wadamada dhaqan oo xoolaha haysta kaliya ay u baahan yihiin oo dadkan masaakiinta oo luqmatul cayshka iyo maaragtay waxay maanta cuni lahayn kaliya la loolamaya aan laga rabin ee dadkaas kale bariiskooda meel saartay kaliya ay u baahan yihiin miya su'aasha marka hore isweydiino horumarintu ma lama huraanba mise waa macnaha waa dheeri أما هو راحة إي وح أنا ربانين. إلهي سبحانه وتعالى القرآن كله هاي لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. خفك الربا أما هرو الصعانية أو هرمريا أما محد عيه والله بنايا. مجرى حتى ماشي إذا تجنانيا سيدا هانيا صوت سنة اسمه بدين قف كان سي سواي 10 sano saanu ahaa iyo ma jirto asagaysan u xisaabsanayn ma ahane dib u dhaca ku socday 10 sano asagaysan u xisaabsanayn oonan ogeyn laakiin maxaa ku socday dib u dhaca ku socday gadaal buu u socday intaas uu macnaha uu islaha waa hormaraysa marka ma jiro wax sideeda ahaanaysa la yiraahdo ma jiro wax la yiraahdo sidaadaad ahaanaysa isma bedelaysid meesha taagnaanaysa ma jiro laba mid dooranaysa marka ama inaad is hormariso oo hormarto oo naftaada wax ku kordhiso mar walba dhinac dhinacay ahaataba laana waa sheegi doona dhinacyada insha Allah taala iyadana waa sheegi doona dhinacyada horumarka ama shibaad ka leedahay waa ka aamusaysa halkaas isku daynaysa adiga naftaada liman shaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar marka waxaan ilaahdaa hadaadan hormarin waad haraysaa qofkaan hormarin way haraya dawladii aan is hormarin way haraysaa Soomaa shirkadii aan is hormarin way haraysaa Nokia maxaa ku dhacay markii smartphone hadda aan isticmaalayno wada shaashada markay soo baxday ama fikradeedii la bilaabay oo Samsung iyo maaragtay Apple iyo ku talaabsadeen Nokia waxay la jaan qaadi weysay horumarkii bashariyadu iyo aadanu sameeyeen oo ahaa in laga gudbo number la riixayo iyo shaashad yar ee screen loo wada gudbay ay maaragtay la jaan qaadi weysay marka maxaa ku dhacay Nokia waa hartay Soomaa sanaday hartay oo dib u dhacday
طيب horumarka nafta sababta uu muhiimka u yahay maxay tahay maxaa horumarinta nafta ka dhigaya wax muhiim ah horumarinta nafta maxaa ka dhigaya wax muhiim ah ya su'aasha isweydiino sabab maxaa nafteeda u horumarinaya haddaan sidii isaga joogo oo yani qisada aan sheego oo yani master caadi قصة معناها أو خيالي أو ملأوال كل سن لكن سامين وين له يعني مستر عادي وحويا أسوق عادي هلا دري أسوق عادي وصوبر باري دوكسي أما سكول عادي أيام لقيه سي عادي وقبرتي سي عادي أيو أسود دمي كده جامعة عادي أيو قلي جامعة عادي سي عادي ودكتي سي عادي ودمي كده شق عادية أيو شركة عادية كبل لابي سي عادي وقشقيه وجورسده جور عادي ilma caadi oo dhalay si caadi u barbaariyay si caadi oo maaragtay uga fadhiista shaqadii amaritaaya itaqaacid waxa la yiraahdo u sameeyay kadibna si caadi ayuu u dhintay si caadi loo duubo ma tahay misama marka qofkaas caadiga noloshiisa ku wada socoto qofka raba inuu naftiisa horumariyo oo horumarinta hiigsanaya oo hamuunta u qaba oo baahida u qaba oo raba maalin ka dambaysa maxaa ku kordhiya xagee ka hagaajiya sideen u horumariya isweydiinaya marka sababta aan u horumarinay nafteena waa maxay koo waxaan leenahay horumarinta nafta waxay ku keenaysaa wacyi ogaal maskaxdaadan ogaal baa ku soo kordhaya lambad baa ka daarmaysa fikrado cusub u baxaya aniga hadda idan la hadlaya maahi ibn umarkii intuusan is horumarin ama horumarinta nafta guda galin ama wax akhrin ama wacyiga iyo dhinacaan maaragtay in nafta iyo maskaxda la dhiso wax laga bedelo galin ka hor ma ahay sida waagaas wax u arkay uma arko sida waagaas wax u fahmay uma fahmo sida waagaas dadka ula dhaqmayay ama aan bulshada ula dhaqmayay ma ahi xirfadii waagaas aan lahaa malihi meelo aan ka liitay waagaas hadda kama liito maaragta marka ugu horeysa waxay ku tusinaysaa wacyi waa maxay inaad fahansan tahay gudahaaga waxa ka socda maskaxdaada afkaartaada iyo waxa ay leeyihiin dareemaha gudahaaga iyo sida aad u hanan lahayd marka gudahaaga caalamka gudahaaga inaad la socoto wacyigu sidoo kale wuxuu ku siinayaa in waxa kugu hareeraysan aad la socoto caalamka kugu hareeraysan aad ogtahay la socoto dadka kugu hareeraysan xiriirada kala dhaxeeya saa u fahmi lahayd mujeda ayadana waa wacyi waxa ka helaysaa horumarinta kaas horumarinaysid wacyigaagaas dhismayo waxaad baranaysaa saa ula tacaamul lahayd afkaartaada waxaad baranaysaa saa ula tacaamul lahayd dareemahaaga iyo mashaacirtaada emotionskaaga saa u hanan lahayd iyo qiiradaada waxaad baranaysaa sidoo kale ku hareeraysaa saa ula tacaamul lahayd qodobka labaad wuxuu kaloo ku siinayaa horumarinta nafta waxay kale ku siinaysaa wax la yiraahdo sense of direction ama al-ihsaas bil ittijaah xageen ku socdaa ha iska soconin baa wuxuu dhihi jiray wuxuu haysan jiray macnaha miisaankan yar oo la fuulo oo dadka isku miisaamaan oo lahaa marka wuxuu dhihi jiray ma iska socotaa mise waa isla socotaa marka يعني وحرا موقتها إنه قفك وسكشك يرا والله مسكش على هرتو أيها الميقع يوكرت ميقع كيلو لا كيلو 6 كيلو بلا أسفيريو مركوح كلية مسكش سعتان مسوا أصلا سعتا كاري إس قياس وإس عبر معناه مركا هرمرينت النفط عادي يكسنيسو waxa bilaabanaya ina isweydiisid xageen ku socdaa waxa aan sameeyo ma wax anay anfacaya ma waxa aniga rabaa ma waxa aniga ku fiicanahay xageebaan ku liitaa maxaa iga dhiman maxaan ku fiicanahay oo hormariya waxyaabahaas oo dhan ina isweydiisaa bilaabanaysa ayaa bilaabanaysa tayib marka haddaadan marka horumarin naf ka shaqeynayno adkaanaysa inaad isweydiiso su'aalahaas soo سؤالات إيه عم إيمانها يعني because نفط هذه مو قد بو سيدا شري كوسي حتى كوسو كعلى ساكي شري إساكي وحبي اسمه أهمان ساكون سيدا كانت وحبك مدونة سادم بنا سيدا كلا لميدته يعني نرى روتين أو سيدا إذا كوسو لا لابنا يسوي واحد بدل عن هين أو صعد عن هين يسبدل عن هين أتكو جرتا مرغول قلب كسدحات وكين هي أهمية ذا ولا مارمان أما الله مهوران إنه يهرمك وحويان waxa la yiraahdo resilience ama murunada muruna yani inuu qofku lahaado la qabsi inuu lahaado oo maaragtay hadba xaaladaha yani nolosha marka gudaha jirto waxa ku soo maraya ma ogtahay culeysyo badan ku soo wajahaya
waxaa kusoo wajahaya fashala kusoo wajahaya ma aha nolosha qurux iyo wardi kaliya ma aha challenges ay leedahay taxadiyaad ay leedahay waxyaabo ku careysanaya ay leedahay caqabad ay leedahay caqabadahaas marka qaar waxaa laga yaabaa inay dib kuu celiyaan laakiin markaad horumar naftaada aad horumarinayso had iyo gooraale oo aad naftaada wax ka bedelayso maxaa imaanaya inaad leedahay dabacsanaantaas kuu sahlaysa inaad la qabsato oo meeshii aad joogtood kasoo dhacday maahan meel ka sare inaad sii gaarto maaragta yani meeshii aan kasoo dhacay qimadii aan kasoo dhacay qimo kasii saraysan gaarayaaba ma kufayaba yani haddaan kufana waxaan garanayaa sidii aan uga gudbi lahaa ama waqtiyada adag ee soo maray nolosha fiican u wajahi lahaa sida aan wax u fahmi lahaa waxaasoo dhan marka xagee ka baranaynaa waxaasoo dhan waxaan ka baranaynaa horumarka aan nafteenna had iyo goor aan horumarinayno dadka inta badan naftooda horumariya waa dad naftooda u heeliya weeyaan waa dad naftooda jecel dad fara badan waxay ku leeyihin nafteedaan jeclahay kan haddaad jeceshahay naftaada oo si dhaba ah u jeceshahay maxaa ka bedeshay maxaa ma u fakertaa iyada maxaa ka hadlaysan maxaa ka dhiman laanna yaa sugaysaa inuu kuu fakaro oo wax kuu kordhiyo ama wax kaa bedelo waa cidna waa adiga calaykum anfusakum naftaadaa lagu raaciyey ee si fiican u raacday mise waxaa ku mashquulsanaa dadka kale niyo haddii kaas wax ka bedeli lahaayeen haddii saan samayn lahaayeen waxaa ku fiican tahay keliya tandiirka waxaa la dhaho iyo inaad maaragtay wax uun maaragtay dharaandhiriso oo sheegto labaduba intaysa saarato yaa aad tiraha saasay ku fiicneed moogta saas inuu yeela ma ahayn moogta go-aankaas isaga ah inuu sameeya ma ahayn moogta adiga go-aamaha noloshaada ay rabtay maxaad ka bedeshay mase taqaanaa go-aamaha noloshaada hormarin kara saa u qaadan lahayd geesinimadeeda qiyaasteeda fahamkeeda ma leedahay waa ina isweydiisa wey inta aad banaanka ku mashquulsatahay inta badan marka waxaa anaga dhibaato nagu haysa waxay tahay oo bini aadamka hadda fiiri bashariyadu horumarka ay ka samaysay dhinacyada nolosha aaday u ballaaran yihiin ilaa dayaxii iyo maxaa lasii dhaafo oo hadda laga hadlayo maxay mariikh iyo dhulkaas kale mars ah laga hadlaya laakiin kuma jeedno nafteena aadaan ugu liidanaa fahamka nafta laftigeeda ilaahayna subxana wa tacaala qur-aanka aayad maaragtay cajiibuhu ku cabiray wa fii anfusikum afalaa tubsiruun horumarka marka bashariyadu ay gaarto weynaad u jeedaan oo technologygan iyo dayaxan la tegayo iyo diyaaradahan iyo waxaanaad u jeedaan waxa uu tusayaa inta ay bashariyadu banaanka ku mashquulsan tahay nafteeda wax banaanka ka ah ku mashquulsan tahay caalamka banaanka ah ay ku mashquulsan tahay soo ma jeed caalam al-ashyaa ay oo banaankeeda ah ayay ku mashquulsan tahay uma jeedo marka nafta gudaheeda marka waxaa badan inaan ka jeedno nafta marka hadda waa inaan nafta usoo jeesanaa horumarinteeda u jeesanaa sababta waxay tahay dhulkan aad u jeedaan iyo kowkabkan aan ku noolnahay iyo kawaakibta la midka balaanetkoo dhan waxa ugu qaalisan ma taqaanaan isweydiiyaba yaa sheegi kara waxa ugu qaalisan kowkabkan iyo balaanetkan iyo uunkan ilaahi subxaana wa tacaala uu abuuray waxa ugu qiimaha iyo qaayaha badan yaa isku dayi karo sheegi kara isku day ya yani isku day inaad isweydiiso ka jawaabto waxa ugu qiimo badan uguna qaayo badan waa maxay waa dadka aniga iyo adiga weyaan aniga iyo adigana maxaan ku qiimaysannahay oo qiimaheena iyo qaayaheena ku fiican yahay horumarin wa nafsin wamaa zakkaaha taskiyadu waa maxay taطhiir iyo tatwiir waay labadaas qaybood waay taskiya sideedaba taskiyatu nafsi waa maxay waxaa lagu soo koobi karaa taطhiir iyo tatwiir nafta inaad tahiriso oo detox ku samayso oo nadiifiso oo wasakhdii ka nadiifiso dambiyadii iyo fikirkii xumaa iyo negative attitude-kii iyo wixii oo dhan aad ka nadiifiso sidoo kale haddaad cayilan tahay sumuumtii iyo wasakhdii iyo cayilkan isfura aad ka saarto detox ku samayso kadibna aad horumariso oo u ilaaliso markaa nadiif ka dhigto oo wasakhdaas ka saarto maxaa soo baxaya naf nadiifsanaa soo baxaysa naftaas nadiifsan marka waxay u baahan tahay had iyo gooraan in boorka laga jafo la nadiifiyo la horumariyo tatwiirkii doorkiisa imaanaya marka horumarintii nadiifin iyo horumarin waa taskiyadii nafta marka nafba nafta ay ka taskiye badan tahay ka daahirsan tahay ka horumarsan tahay ka qiimo badan tahay
sidaa daraaddeed ayaa dowladuhu waxa ay ku tartamaan waxay tahay haddana ugu muhiimsan resourciga ama ilaha ay xoogga saaraan isha dadka tayada leh human resourciga oo maaragtay kuf'iga ah oo efficiencyga ah oo tayada leh oo facaaliyada leh oo wax soo saar kale weeyaan tusaale dowlad hadda sida Singapore oo kale ah aad u kooban yihiin waxyaabaha resources kale lagu dagaalamo la isku qabsado biyo iyo petrol iyo maaragtay beero iyo wax le waa ku kooban yihiin laakiin maxay haysataa dad tayo leh sidoo kale Japan waxay haystaan dad tayo leh wadan marka sida Soomaaliya oo kale tusaale usoo qaadano muxuu haystaa resources inta taqaaniin tiriya biyaha waa haysanaa iyo macnaha khayraadkiisi waxaan haysanaa petrolki macaadintii kale beerihii xoolihii kale tharwal xayawaaniya kulli ma lihino laakiin kulligood maxay u shaqayn la'yihiin oo intay maaragtay inta la hormariyo wax laga soo saaro aan hodantinimo iyo nabad iyo maaragtay deganaan u gaari la'na annagoo intaas oo ilaah haysano inta ilaahay la sheegay nooci ahaadaanba annagoo haysano maxaa u la'na kanaa la'nahay kan ma horumarsana kanaa obsolete ah out of date ah maaragta kanaa marka wuxuu u baahan yahay in la horumariyo la update gareeyo wax lagu daro wax laga bedelo mindsetkaas kaasaa marka wuxuu kuu keenayaa ilihii xataa banaanka asaa ka keenaya okay tusaale kale businesska maxaa asal u ah ma waxaa asal u ah ra'sumaal miyaa asal u ah iyo dhaqaale mise fikrada asal u ah isweydii isku day bal inaad ka jawaabtid naftaada bal waqti qaado business aan rabaa inaad create gareeyo asal ma waxaa ah oo marka ugu horeysa muhiim ay tahay inaan raadiyo ama maaragta guuleysigiisa saldhig u ah ya fikradda mise dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa maaragta inaa isweydiisa asaga طيب fikradda ayaa asal ah dhaqaalaha kana horeysa mar walba sababta haddaadan haysanin waxaad ku maalkan waxaad ku maaragtay maalgelin lahayd ama qaabku u shaqeyn lahaa xataa marka qaar kuguma filna fikradda bis inaa haysid koob shaah green tea sameynaya dad u sameynaya kaliya kuguma filna waa inaad taqaanid qaabkii wax uu soo kordhin karto maxaa waxa suuqiya la uga duwanaan kartaa maxaa adiga kaa sooci kara inta in la ega socon kartaa yaa u baahnaan kara feasibility study waxyaabihii u baahnaa businesska iyo diyaarintiisii waa inaad taqaanid marka waxaan ka wadnaa qofka bini aadamka ayaa ugu qiimaha badan waxa dunida dusheeda yaala ilaahay subxaana watacaala koonka dushiisa wuxuu saaray aadana ugu qiimo badan walaqad karamnaa bani aadam ilaahay subxana wataala saas daraaddeed wuu karaamay wastakhlafakum fiiha ama wastacmarakum fiiha labada quraanka ku timid soo ma ilaahay marka annaga wuxuu naga dhigay khulafadii dhulkan joogay dadkii dhulkan camirayay maxaan ku camiraynaa horumarin inaan develop karayn saa daraaddeed xataa fiqiga culimmada maxay yidhahdaan qof dhul iska haysta oon horumarinayn dhul weyna u oodan laakiin aan development ku sameyno istifmaar iyo investment ku sameynaynin waxay yidhahdaan waa laga qaadaya qof kaleeto maaragtay horumarinaya dhulka in dowladda inta ka wareejiso qof horumarinaya loo dhiibo waxaas dhan waxay tusinayaan marka lagama maarmaan inuu yahay horumarku waxaan ugu horeeyay oo la horumarinayo waa maxay waa nafteenna wax ugu horeeya la horumarinayo halkaa markay marayso waxaan leenahay si aan u horumarino nafteena marka waa inaan fahmino saddexagal waa inaan fahmno oo noloshu leedahay saddexagalka noloshu leedahay oo qofka bini aadamka khuseeya wuxuu yahay saddex qaybood qayb waa hurdo qayb waa hurdo waxaa raadinaya coach oo hurdada iyo ku takhasusay howlahaas sida laysaga horumarinayo hurdada taas wax badan hadda xog badan kama hayo macnaha aqoonteedu waa kooban tahay weli dhankaas waa ka kooban tahay macnaha waxyaabay kaaga baxda nolosha macnaha ka wada waxaan nidhi saddex qaybood aan u qaybina qayb waa hurdada qaybta kale waxaan nidhi waa umuuraha shakhsiyadeed ee qofka ku khuseeya
cunno cunidaadii qubayskaagii qoys waqti la qaadadkaagii xiriiradaadii kale buug aad akhrisay seminaar aad ka qayb gashay waxyaabahaas umuur khaas ku ah oo qofka personal issues ah weeyaan waa qaybtii labaad weeye qaybta saddexaadna waxa weeyaan shaqadii ama waxbarashadii qofna shaqo aadaa 8 saacadood oo shaqadaas ku maqnaada qofna waxbarasho aadaa Soomaa marka 4 saac hadaa maalinka haysano 8 saacadood hurday u go'do aad u xanuun badanta ma aaminsan dadka aaminsan kuma jira aniga 8 saacadood in hurdo la siiyo aad ugu badan tahay hurdo 8 saacadood aad ugu badan tahay hurdo waxaan is leeyahay 5 saacadood okay waaye hadii bar lagu daro maximum 6 لأنه waxa u baahan tahay say sheegaan 3 mar inaad gasho waxa la yiraahdo deep sleep macnaha oo geed cabirtaa jirta keerfiga inuu si fiican u galo oo qofka u galo saddexda marka waxay dhahaan qofka dhiibka marxaladda dhiibka wuxuu galaa saacad iyo bar kasta mar ayuu galaa hadduu marka qofka 3 mar uu u baahan yahay saacadii bar isku darsamay saacadii bar 3 saacadood saacadii bar 4 saacadood bar nus saac isaga dar inta raadinaysay 5 saacadood inaa faa u arka 5 saacadood bar dheh haddii aad u hurdo jeceshahay sidoo kale 6 saacadood ay kula dhaafin ma tahay mise maaha laakiin 8 saacadood iska ilaali marka haddii 8 saacadood hurdo ay kaa qaadato ku fiirso 8 saacadood maxay ku baxday hurdo 8 saacadood kale maxay kaaga baxday cuntay qofaa la soo fadhiisatay waxa buuga akhriso ama hada akhriso hadda 8 saacadood kale waxaaba qaad social media Soomaa hebel muxuu yiri hebel ma aragto waa live soo galay wuu furay moogta hebelu furay adiga maxaa ka galay hebelu furay khabarkaas macnaha muxuu adiga ku soo kordhina ku sameeyna wallahi ani waa liya mararka qaar dadka macnaha sida ay يعني هوسك وهاي obsess ويهين hebla furay heblaayo hebelu maaragtay cod oo sirhu ka soo qabtay heblaayo adiga ahaan isweydii يعني aniga maxamed ahaan hebla furay يعني news kaas waxa uu nolosheeda ku soo kordhinayo waa maxay waa nothing sadaraad social media iska fiiri waqti badan uu cunaaya oo hadda waqtigii umuur shakhsiyada oo la rabay inaad dad far badan u helaan jaanis maxaa la yiraahdaa familkooda ama dadka ugu dhow waalidkood waqti uma helo sababtu waa maxay qaybtan labaad oo umuurtii shakhsiga ahayd ku saabsanayd waxaaba qaatay oo la tagay social media iyo taxliil iyo TikTok iyo wax inuu la socdo bas ileen jaanis kala ma leh moogta waa dhibaato ayada marka qaybta labaad oo marka la rabay umuuro badan inaad ku celiso 8 saacadood waqtiga buug akhriso waqtiga saacadii bar koors qaato ama saacad maalinka ma koors qaato nus saac ila 4 daqiiqo wax akhriso maarta qof muhiim oo maartay development ah ku sameeyay ama horumar ah ku sameeyay xiriirka kala dhaxeeyay oo ama business ama si kala soo anfacaysaan ila aakhir xiriirkii familka iyo qoyska iyo wadajirkiisi iyo horumarintiisi waxyaabahaas qaybta saddexaad ah qaybtii waxbarashada ama shaqada waa iyadan development u baahan career development u baahan ama sidee aan waxbarashada arday oo kala hadda levelka amray arday yahay oo aan waxbarashada wali ku jirsan oo horumariya si sahlan wax akhri karaa speed reading u baran karaa maxaa la yiraahdaa akhrin badan u baran karaa sidee waxyaabaha loo baaro qaabka wax loo baaro u baran karaa hadda sidaa wax u baran lahayd barashay ka rabtaa meel ku qor sidaad wax u baran lahayd maanta barashay ka rabtaa ma ahan iska gal sidaa wax u dhalan lahaydna barashay ka rabtaa saa u guursan lahaydna barashay ka rabtaa ma aha wallahi kaftan daba iga tahay macnaha kulligood noloshii by default ku soo socotay yaa waa iska soo dhamaanaysaa mar dhow ama marka hore ka baaraan dagaysaa oo si fiican isugu diyaarinaysaa oo mindset fiican u dhisaysaa faham fiican u dhisaysaa isu diyaarinaysaa waxa aad galaysid si fiican ama intaa ku nasiibsa ku gashid iyo waa gud madow gacan la geliyo iyo ku gashid hadhowti masas ku qaniinayaan kadib inta isdaaweynaysid sunta inta iska saaraysid inta la rafanaysid jaaris yani trial and error kaasa ku jiraysa dadku waa laba nooc dadna dadkii khibradda sameeyay wax soo bartay oo wax soo faa'iiday experience nolosha ka helay soo ku faadhacay experience uu sameeyay ay wax ka kororsadaan ama book ha ka akhristeen ama seminar ha ka qaateen ama waxa ka sameeyaan dadna waxay sameeyaan ku nasiibso
iska fiiri trial and error marka wixii aad hal sano aad ku gaari lahayd marka aad book ka akhriso ama course aad ka qaadato ama session oo tala bixina iyo fadhi tala bixin ama coaching lagu sii aad ku soo gudbi lahayd waxay kugu qaadanaysaa maxay 10 sano waana inta u dhaxaysa qofka naftiisa hormariya iyo qofka ku nasiibsada ku nasiibsada nolosheena waa ka wanaagsan tahay ujeedka ilaahay subxaanahu wa ta'aala noloshan qiimaha badan noo siiyeen waa ka qiimo badan tahay ku nasiibso in lagu wada nolosha afa xasibtum annama khalaqnaakum cabatha ilaahay wuxuu yidhi bilaash in laydin abuur maamulaysaa iyo ku nasiibsi iska joog iyo soo kac laadhuu dheel maxaa la yidhahdaa garabkii meel cidlaa bannaan iska fadhiiso maxaa la mid kaleto tag heblo fiiri ma aha cabadkaas ma aha waa inaad garan karto qiimaha iyo qaayaha naftaada ay leedahay waxay yidhaahdaan adiga ma ahid isla adiga adiga waxaad tahay isla adiga 10 sano kadib ilaa wixii aad akhrisay iyo dadkii aad la kulantay mooyaane waxaa laga yaabaa book aad akhrisay ama seminar aad ka qayb gashay ama qof aad la kulantay maaragtay coaching session ku siiyey ama tala bixin ku siiyey amaba xataa fadhi caadi ah ku kulanteen erey uu yiri inuu wax badan ka bedelo 10 sano oo maaragtay oo isbedel inuu ku dhaxal siya laga yaabo sida aniga isoo martayba marka marar badan ka faa'iideyso dadka aad la kulmayso ka faa'iideyso buugta akhrinayso sidee adiga naftaada wax uga bedeli karaan sidee maxay adiga wax kuu soo kordhin karaan ma aha xataa akhrintan oo akhrin kaliya intaasaan akhriyay intaasaan sameeyey kaliya muhiim ma aha inama aniga see waxaan macluumadan aniga sidee ii anfici kartaa sidee aniga waaqicayga ugu dabaqi karaa ugu dhaqan gelin karaa marka waxaan leenahay horumarka waa lama huraan in la is hormariyo waa lama huraan ama dowlad ahow ama dad shacaba oo dowladda ku nool ha ahaadeen ama qof ha ahaado kulli waxaa loo baahan yahay in la is hormariyo haddaanan is hormarinna maxaan nidhi waan haraynaa qofkaan is hormarin wuu haraya marka guntii gunaanadka waxaan isu diraynaa practic dhaqangelin maaha iska sheeko maaha iyo taxfiis iyo waa samayn kartaa hore u soco gal keliya ma ahan waa in steps ay raacaan sooma markii afkaar lagu siiyo lambada lagu daaro macnaha aad hesho nafsiyad sareysa aad hesho dhiirigelin aad hesho waa inay strategies jiraan iyo steps aad qaadayso sooma iyo tallaabin aad qaadayso marka waxaan leenahay dhamaadka live-keenan maanta insha Allah tacaala kow waxaan leenahay go-aan laga rabaa kow waa maxay go-aan noloshuna waa go-aamo isku tagay ogow inaad iska fadhiso waa go-aan inaadan go-aan qaadaninna waa go-aan laftigiisa go-aan qaado maanta wixii ka dambeeya muxuu yahay go-aankaas ciwaankiisa muxuu yahay waxaan mudanahay horumar weliba joogto ah continuous improvement horumar joogto ah ayaan mudanahay hoosta ka xariiq markaad adiga iyo naftaada doodaan oo ka dhaadhiciso oo isla goysaan go-aankaas la qaadataan qodobka labaad ee dhaqangelinta kaa raba waxa weeyaan samayso deegaan kugu taageero horumarkaas deegaan kugu taageero maxaan ka wadaa qolkaagii oo kaleeto haddaad maaragtay miis yar iyo xoogaa buuga aad soo gadan karto oo miis yar aad u samaysato oo haddaa qolkiigaa deganta sariir haddii maxaa la yidhaahdaa asxaab kale aad raadinso oo isla waxyaabahaas danaynaya inay wax akhriyaan is hormariyaan afkaar laga raadso environment supportive environment raadso bii'a daacima deegaan ku taageero oo ku taakuleeya raadso caadooyinka qaababka loo sameeya ka mid tahay oo u baahannahay qodobka saddexaad waxa weeyaan hal tallaabo ood samayn doonto qor hal wax bis ku bilow ha xamaasoobi hal mar ha wada gelin ha ku ordin tartiib hal tallaabood qaadayso hoosta ka xariiq bismillah garabkaagana allah galo allahna ka hormari haddii su-aalo jiraan 2-3 daqiiqo insha Allah tacaala fadhiga maanta ama tusmada maanta ee ciwaankeedu ahaa hamuun horumar macnaha baahi zaa'ida oo horumarka loo qabo iyo ciwaanku ahaa marka qofkii su-aal ka qaba 2-3 daqiiqo insha Allah tacaala idin sii joogaya haddii ay su-aalo jirinna insha Allah tacaala nus saacaheenu noo dhamaada u malaynaya weegan nus saacihii halkaas ayaan kusoo
ختمنا إن شاء الله تعالى. لما نسوي هذا أخيارته أستاذ أبو بكر سودو، أستاذ مهد سودو، لما الله كلاتون وجيدنا قرال كذا كلين من مدة إني سودوين هذا أمها سنتين وسؤالنا مجرانا أمرينا يا سيد إيه موقته قف سو ويدين يا وحي موقتا. أوكي هل كنا ختم لنا إن شاء الله تعالى ويجن 10 كاس هنوجري همون هرمر هلقى فكروا قرينتيسا هي فافينتيسا انت إن شاء الله تعالى حنبرنا ويك صوص على إيوه عنوان عصب إلهي إذا كيس وما سنتهين هذه سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.